wasiirka wasaaradda maaliyadda ee maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa waxa uu gaaray degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose isagoo urku galaya xaaladda maaliyadeed ee degmadaasi gaar ahaan habka loo qaado cashuuraha isla markaana loola macaamilo gaadiidka isaga goosha gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. warkaasna magaalada Afgooye waxa inooga soo diray Cabdiwali Cali online. wasiirka wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed Soomaaliya oo wehelinayo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose oo soo gaaray maanta degmada Afgooye ayaa soo kormeeray kontaroolada lacagaha looga qaado gaadiidka u kala goosha koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. kormeerka mas'uuliyiintan ayaa ah mid ku qotoma hubin iyo sax ahaanshaha lacagaha gaadiidka looga qaado kontaroolada iyo haddii ay jiraan wax isdaba marin ah. waxaana wasiirka maaliyadda iyo maamulka gobolka ay kulamo la qaateen shaqaalaha wasaaradda maaliyadda kuwaas oo ay ku booriyeen in bulshada ay ugu adeegaan si sharciga waafaqsan. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax ayaa wasiirka soo dhaweeyay warbixin ka siiyay shaqada ka socota halkan. salaan kadib mudan wasiir farxad ay noo tahay inaan kugu soo dhaweyno degmada Afgooye oo ah labada bar control wasaaradda maaliyadda ee kastanka ama canshuuraadka ay uga qaado dadweynaha si gaar ah gawaarida waaweyn ku yaryar ee isticmaala wadadan muddo fara badan 4 sano ee la soo dhaafay halkan sidaad ka dareemaysid waxaa joogay shaqaale ka shaqeeya nidaamka dawliga ahna runtii si fiican ayuu uga shaqeynayay laakiin dhibaatooyinka ay qabto adaa ugu horeeyo indhaha ku arkaya waa meel u eg hab difaac oo kale waxaan rajaynaynaa inaad anoo fursaddan ka faa'iideysanahay halkan aad ka dhisi doontid xarun fiican oo wasiirka wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed Axmed Maxamed Xuseen ayaa uga digay shaqaalaha inay ku dhaqmaan musuqmaasuq sidaas beddelkeedna shaqada loo hayo bulshada loo guto si wanaagsan. inaan u kuurgalno oo aan hubino qaabka ay u shaqeyso wasaaradda maaliyadda qaybteeda degmada Afgooye. sidaad ogtiin degmada Afgooye waa degmo aad muhiim ugu ah markii la fiiriyo dhinaca wax soo saarka iyo dhaqaalaha guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed waa meesha ugu muhiimsan oo ahmiyad gaar ah u leh dawlad goboleedka koonfur galbeed. wasaaradda maaliyadda waxay ku leedahay shaqaalaha u joogo waxay ka shaqeysaa laba kastam oo kala ah Baar Ismaaciil iyo kastamka Mukayga. marka ujeedadeena maanta waxay ahayd inaan aan dhiirigelino shaqaalaha meesha joogo aan hubino qaabka ay u shaqeeyaan aan fiirino ogaano waxyaabaha ay u baahan yihiin iyo caqabadaha haysta inaan ogaano aan xog wareysanay ahayd waana la kulanay shaqaalihii sida gudoomiyaha uu sheegay runtii xaaladda shaqo ay ku jiraan. Cabdiwali Cali online TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose.